الله ما هتسكله وما نوصل تقليه إن هالكان مناسبة wanaagsan aan ka soo qayb galno mudanayaal iyo marwooyin waxa sharaf ii ah inaan mar kale hortiina imaado anigoo gudanaya waajibaadkii dastuuriga ah ee furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida aad la wada socotaan dalka Soomaaliya wuxuu marayaa marxalada adag oo u baahan in dhamaanteen aan u istaagno gacmahan isqabsanno si aan uga gudubno marxaladaas adag ee uu dalkeenu marayo uu ku jiro tan iyo intii aad doorateen waxaan ka shaqeynayay si Soomaaliya ay u yeelan lahayd dawlad ka shaqeysa danaha dadka iyo dalka waxaan soo marnay marxalado badan oo kala duwan waxaan la dagaalnay ama weli la dagaalameynaa kooxaha argagixisada ah oo si aan dalka uga sifeeno ama uga xoreeno waxaan gaarnay guulo waaweyn oo lagu naaloon karo hase yeeshee wax badanna waa noo harsan yihiin weli waxaan dadaal xoog leh aan ugu jirnaa sidii aan u soo celin lahayn sharaftii iyo haybadii ay ummadda Soomaaliyeed ee adduunka ku lahayd waxaan ka shaqeynay inaan xiriir wanaagsan oo is-ixtiraam iyo istixgelin ku dhisan aan la yeelano wadamada adduunka iyo kuwa mandaqada ee gobolka waxaan idin xaqiijinaynaa inaan marnaba aanan ka daali doonin inaan sharafkii iyo sumcaddii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd aan dib u soo celinno inta aan talada hayno waxaan rabaa inaan idin cadeeyo in Soomaaliya ay istaagtay dibna aysan u noqon doonin insha Allah وما سنتهين مدنيال مرويين هيا وما سنتهين وما سنتهين hayaanka dib u soo nooleynta qaranimada Soomaaliyeed ay soo bilowday ma aha mid ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdeeda toonna ay dib uga noqon karaan ama uga noqonayaan waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa dawlad iyo shacabka inay u midoobaan siday u tirtiri lahaayeen ama uga adkaan lahaayeen ama ula dagaal lahaayeen argagixisada caadeysatay daadinta dhiiga shacabka Soomaaliyeed oo islaamka ah iyo cid kasta oo ka soo horjeeda horumarka iyo dib u soo nooleynta qaranka Soomaaliyeed waxaan sidaan horey idinku ballan qaadayba naga go'an sidii loo gaari lahaa qarannimo Soomaaliyeed oo waarta saldhig adagna leh ummadda Soomaaliyeedna ay u siman tahay waxaan sidaas si la eg shacabka Soomaaliyeed aan ugu baaqayaa inay si dhow ula shaqeeyaan dawladooda kuna garab istaagaan sidii loo xaqiijin lahaa hadafka guud oo ah in la helo qarannimo iyo midnimo Soomaalinimo ku dhisan ma jiro wax Soomaalinimo ka yar oo nadeeqi kara waxa hubaala in si aan hadafkeena u gaarno shaqo badan ay noo taalo
in kasta oo dalkeenu uu ku jiro marxalad adag ay ka mid tahay nabadgelyada dhaqaale ahaan siyaasad iyo bulsho ahaanba haddaan si wada jira aan isu kaashanno oo aan awooddeena isugu geenno waxaan aaminsanahay intaasoo idil inaan ka gudbi karno annagoo ka ambaqaadeenna sidii aan si buuxda uga hanan lahayn qarannimadeenna waxaan dejinnay qorshayaal ciidan oo loogu talagalay sidii loogu sugi lahaa ammaanka dalka si rasmi ahna loogu ciribtiri lahaa argagixisada iyo cid kasta oo khatar ku ah ammaanka dalka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaanse idinkugu baaqayaa mar kale inaan garab istaagtaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo naftooda u huraya maalin iyo habeenba una taagan sidii ay u soo celin lahaayeen sharaftii iyo xurmadii iyo karaamadii ay lahayd ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaan sidoo kale aan dejinnay qorshe horumarin qaran oo tilmaan cad leh sidii uu dalkan u gaari lahaa horumar iyo isku filnaansho mustaqbalka hadduu Ilaahay yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin mudanayaal iyo marwooyin si loo gaaro qarannimo midaysan qarannimo dhammaystiran waxaa maamulkaygu xooga saaray sidii ummadda Soomaaliyeed horumar u gaari lahayd siyaasad loo dhan yahay iyo dejin xeer qaybsashada khayraadka dabiiciga ah waxaan dhaqan gelinay nidaamka diiwaangelinta kumeel gaarka ah ee xisbiyada siyaasadda dhanka kale waxay dawladdu dhammaystirtay xulashooyinka qodobada dastuuriga ee dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada xaajoon karaan ay ka wada shaqayn karaan sida maqaamka ay magaalo madaxda Muqdisho ay ku dhex yeelato hanaanka federaalka qaab dhismeedka dawladda astaynta awoodaha dawladda hanaanka dawladeed ee federaalka Soomaaliya hanaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka iyo waliba hanaanka federaaleynta maaliyadda waxaan ka shaqeynaynaa sidii aan ku gaari lahayn hanaan dimuqraadi ah oo ku dhisan nidaam federaal kaasoo soo celin kara qarannimada Soomaaliyeed oo loo dhan yahay loona siman yahay waxaa sidaas la socotaan oo idin sugaya dhammaystirka hindis sharciyeedyada doorashooyinka iyo dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeenta dalka waxaan idinka codsanayaa inaad ansixisaan hindisiyaashaas si degdeg ah si dalka uu u gaaro qof iyo cod hadduu Ilaahay yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin sidii aan ku xusay khudbadaydii tan ka horeysay ee kalfadhigii hore muddadii koobnayd ee maamulkaygu jiray waxaa saxiixay 4 sharci oo uu ka mid yahay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo sidaad ogtihiin gundhig u ah aasaasidda qarannimada Soomaaliyeed oo taaba gasha shuruucdaas aad ansixisay iyo kuwa kaleba oo idin hor yaalla waxaa muhiim ah xildhibaanada sharafta leh inay si degdeg ah iyagana u ansixiyaan sharci baa dal lagu dhisaa laguna dhaqaa sidaas awgeed waxaan mar kale ku soo celinayaa codsigaygii ahaa inaad dardargelisaan hirgelinta sharciyada idin hor yaalla iyo weliba kuwa kale oo idin hor imaan doona hadduu Ilaahay yiraahdo
mudanayaal mahadsanidin kobcinta dhaqaalaha dalka waxay sidoo kale ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha qaranimada sidaas awgeed waxaa maamulkaygu ahmiyad gaara siiyey sidii dib loogu soo yegleeli lahaa habdhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara inaan qarannimadeennii dib u hananno annagoo arrintaas ka duulayna waxaan dadaal dheeraada ku bixinnay sidii deymanka nologu cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha waxaan alle mahaddiis ah aan ku guulaysannay inaan si hufan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xiray ama nalaga rabay in maxaanku idhaahdaa inaan gaarno yoolkii aan kula heshiinay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ka si maxaanku idhaahdaa nalooga cafiyo deymahaas shuruudahaas noo haray oo nalaga rabo inaan si deg dega ku dhammaystirno waxaan rabnaa bishaan gudaheeda in la dhammaystiro hadduu eebba yidhaahdo madashii iskaashiga ee Soomaaliya iyo beesha caalamka SPF waxaan bogaadinayaa maxaanku idhaahdaa wixii ama aan u mahad celinayaa hawshii ay qabteen iyo waxay soo saareen waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan hirgelinno mudanayaal iyo marwooyin sidoo kale waxaa kobci dhaqaalihii gudaha kadib dib u habeynaan ku sameynay oo aan habkii ururinta dakhliga gudaha aan ku guulaysanay waxa kale oo intaas dheer oo aan gaarnay arrinta noo sahashay si joogto ah arrintaas noo sahashay si joogto ah inaan u bixinno bacdama aan aruurinay dakhli maxaanku idhahdaa nagu filan inaan mushaharaadkii shaqaalaha aan si joogto ah u bixinnay muddooyinkii aan joognay talada mudanayaal iyo marwooyin dhinaca dib u heshiisiinta waxaa naga go'an inaan ummadda Soomaaliyeed aan dib u walaalayno annagoo u marayna dhaqankeennii wanaagsanaa ee iscafinta iyo isu tanaasulka qaranimo waxaan ku gaari karnaa oo keliya inaan iscafinno alle u noqonno dalkeenna dhismihiisa aan ka wada qayb galno oo si wada jira aan uga qayb galno haddii ay jiraan kuwa aaminsan in dadka Soomaaliyeed ay qasab ku hoggaamin karaan waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii jahwareerka way ka gudbeen xilligii lagu orkacsan jiray mudanayaal iyo marwooyin sida aad la socotaan waxaa la mahadiisa oo dhawaan noo soo gabagaboobay shirkii dib u heshiisiinta ee Galmudug natiijada aan ka gaarnay dib u heshiisiintaasna waxay noo fududeysay inaan hadda u gudubno sidii aan u caawin lahayn oo aan u dhisi lahayn aan u wada dhisi lahayn maamul loo dhan yahay oo ummadoo dhan ay ku qanacsan tahay waxaa naga go'an inaan dhagaysanno cid kasta oo wax tabanaysa waxaa naga go'an inaan garowsanno cid kasta oo garowshiyo leh ama mudan waxaa naga go'an inaan
raali gelinno cid kasta oo raali gelin mudan waxaa naga go'an inaan ka miro dhalinno dib u heshiisiin waarta oo ka hirgasha dhammaan geyiga Soomaaliyeed laakiin marna ma ogolaan karno ama ma ogolaan doonno haddii Ilaahay yiraahdo inaan dib u noqonno marna ma ogolaanayno inaan aqbalno wax qarannimada ka yar marna ma ogolaanayno inaan aqbalno cid kasta oo iska hor istaagta dib u yeegleelidda qarannimada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin nidaamka federaalka waa nidaam ay ummadda Soomaaliyeed u dooratay ama ay ku heshiisay inuu noqdo hab maamulka dawladdeena ilaa ay ummadda Soomaaliyeed iyagu go'aansato inay wax ka bedesho nidaamkaasi waxa weeye uu jiri mana jirto dawlad ama koox gaar ah oo wax ka bedeli karta waxaase nasiib darro ah in dad qaarkiis ay si khaldan u fahmeen ama u macneeyeen nidaamka federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awood qaybsiga dawladda dhexe iyo dawladda xubnaha ka ah laakiin ma siinayso madax bannaani gaar ah dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah waxaan idin xasuusinayaa in mas'uuliyadda ilaalinta qarannimada dalka iyo madax bannaanidiisuba ay saaran tahay dawladda federaalka ah waxaan mar kale rabaa inaan idin xusuusiyo in siyaasadeenna arrimaha dibadda saldhigeedu yahay in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada dariska iyo kuwa caalamka labadaba xiriir iskaashi ku qotoma ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta nimada madax bannaanida iyo ilaalinta xuduudaheena dhulka badda iyo cirkaba xiriirka aan la leenahay wadamada dariska ah waa mid aan doonayno inuu u dhismo ama u noqdo mid iskaashi iyo mid siyaasadeed iyo mid amni kaasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi siman oo dhinacyadoo dhan ah waxaa intaas dheer oo aan kusoo gabagabeynayaa annagoo arrintaasi ka duulayna waxay dawladda Soomaaliyeed kaalin muhiim ah ay uga jirtaa xoojinta xiriirka iskaashiga ee wadamada geeska Afrika gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada dhaqaalaha siyaasadda iyo bulshada waxaan mar walba ku taaminaynaa sidii uu geeska Afrika u gaari lahaa xasilooni buuxda oo dhinac walba ah mudanayaal marwooyin waxaan ku soo gabagabeynayaa kalfadhigan lixaad ee baarlamaanka waa noo furan yahay maanta oo ay bisha tahay Oktoobar 9 2019 waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh